maragan ku dura waxa waaya maraga maxkamadda wuxuu ku hor yiri oo warkiisa la qaato waayo in la qaado ma huba wuxuu maxkamadda ku hor yimid waa maqnaay maxkamadda ku hor yiri inuu joogan cadayn ma ahan miya ka gudubtaas okay waa fahmay maxkamad si fiican u fahamtay ma fahanta ay maxkamad naqsasho waa ka badbaala maaha abukaati ka gudub meesha abukaati ralaw abukaati meesha meel lagu ciyaaro ma ahan dadka laga ma qosna majaajilo loo ma joogo eeda waxaad difaacayso difaacaaga sida ay tahay u gal maxkamad su'aasha ay ku weydiisanay sida ay tahay uga jawaab dadka inay ka qoslisaa ka shaqeyn arinta safarkaasi cali uu sheegay inuu u diiday agaasimaha wuxuu sabab u yahay abukaati ha eeda xafiiska xilaalta safar ma kamida cadaymaha loo kamid yahay ninkay keeneen asheen ninkay ay keeneen Cabdullaahi kaliyo ku marag furay mise eedeysanayaal badan ku marag furay cidoo raba ku marag furay Cabdullaahi oo qoseeya safarka ka gudub waxaad u gudubtaa dhacdooyinka kala gudub waxa ugu muhiimsan in maragaasi cadawtooyo oo u qaba Cabdullaahi marag horta dinka mudlid ku ah maxkamadda hana tiraalidin kuma ahayn xeeraalantu lidin ku ahay tiri Cabdullaahi wuxuu handal gareeyay oo ku guuleystay oo gaal iyo muslimba ay ka marag fureen mashaariic half billion gaarayso ninka taas ku guuleysatanna waa ku shalab waxaan rabaa inaan hal arrimo kooban oo waqti badan aanan ku bixinayn maxkamadda aan la wadaago waa arinta maraggi aan duri doono oo maxkamadda xeer ilaalintu ay keento uu sheego safar arinta safarkaasi cali uu sheegay inuu u diiday agaasimaha wuxuu sabab u yahay abukaati ha eeda xafiiska xilaalta safar ma kamida cadaymaha loo kamid yahay ninkay keeneen asheen ninkay ay keeneen Cabdullaahi kaliyo ku marag furay mise eedeysanayaal badan ku marag furay cidoo raba ku marag furay Cabdullaahi oo qoseeya safarka ka gudub waxaad u gudubtaa dhacdooyinka kala gudub maragaasi waa durayna maraga darabta dur waxaan ku dirayo waxa ugu muhiimsan in maragaasi cadawtooyo oo u qaba Cabdullaahi marag horta dinka mudlid ku ah maxkamadda hana tiraalidin kuma ahayn xeeraalantu lidin ku ahay tiri adi abukaati ha adi maxkamaddu meesha waxay u fadhidaa inay go'aanada maxkamaddu ay fulaan maraga ka durin arinta ku saabsan safarka leeyahay eeda xafiiska xeelaanta wax safar ku saabsan ma lahan xafiiska waxaad ka difaacaysaa eedeysanaha difaacayso qodobada ka 241 iyo 282 iyo qodobka 12aad iyo qodobka 46aad iyo qodobka 55aad ee xeer soo baxay xeerka 17 safar liiga joojiyay eeda kamid ma waqtiga maxkamadda aan ilaalinayno maanta waxaan ku talagalnay dacwad inay gabagabowdo emailladii iyo waxaad ku bixisay wax ka badan waqtiga aan ugu talagalnay maxkamadduna way fahamtay laana dooda adiga aad soo jeedinayso ujeedka uga goleeda waxay tahay in maxkamaddu fahamto maxkamaddu way fahamtay cadeymaad soo gudbinaysana 202 iyada ku qiimeyn doonta waxaan rabnaa marka adigoo waqtigana ka faa'iideysanay waqtina aan naga luminaynin inaan waxa aan adiga muhiimka ku ahayn oo difaacaaga wax tar u lahaynin inaad ka gudubto ama waqtigeeda soo kaabiso oo gudmar ku samayso doo maasanta waqtigan soo gaabina gudmar aan ku sameynaya maraga oo caliyow oo la keenay hal meel ayuu ka quseeyaa waxaan rabaa maraga oo caliyow cali oo la keenay maxkamadda wax oo hadda lid nugu oo uu sheega ma jiraan marka laga reebo hal arin inuu ku masabitay Cabdullaahi oo uu ku nabay oo markii maxaan iraahdaa asiga iyo Cabdiraxmaan ay isku dhaceen oo la bahdilay sidoo sheegay oo laga xanaajiyay oo tiim barihi oo qaatay 2018 uu ogay 2019 uu ogay 2020 uu qaatay marka arintaas ay dhacday kadib Cabdullaahi inuu soo wareejiyay oo meesha uu ka soo wareejiyay agaasimuhu meesha uu ka soo wareejiyay meeshaasi sababta ay xeer ilaalintu u leeyihiin Cabdullaahi uu lid ku yahay intaas waay oo ay u fasirayaan soo wareejinta wuxuu gacan siiyay Cabdiraxmaan uu gacan siiyay amal ay u fasirayaan gudoomiye meeshaas waxaan rabnaa laba arrimood oo kooban inaan uga jawaabno
soo wareejinta cabdiraxmaan caliyow soo wareejintiisu ma ahan soo wareejin waree meeshaas ka soo wareega meeshaas soo wareeg la yidhaha maba dhicinba laakiin 2021 waxaa dhacday sida asuguba uu sheegay agaasimaha guudna uu sheegay ninkaas oo 2016 shaqaale ku meel gaara noqday muddadaas shaqaale ku meel gaara ahay aan rasmiyeyn helin in 2021 boos wasaaradda gudihiisa gudaheeda ninka shaqeeyo oo ku shaqeeyo oo booskaasi uu faaruq noqday oo dibadda qofkaasi uu ka aaday sidaas darteed agaasima sucaad ay soo jeedisay in lagu meeleeyo booskaas asuguna uu ogolaaday uu ku meeleeyo meeshaas marka micnaheedu waxa waayay haddii qofka mihi lagugu bedelay mihi ay ka shaqaynaysa inaad ka shaqaysad ku khasban tahay asiga laftirkiisa arrintaasi markaan su'aalaha weydiino ka jawaabay oo sidaas uu ku jawaabay eedaysanuhuna maxkamadda waa u sharxay taas waa midda labaad arrinta labaad eedaysanahaas ee sheeg maraggaasi wax kastuu sheegay ama waa isoo bedela ha noqoto ama wax kale ha noqotee waa markhaati beenaalo oo lama qaadan karo limaada waxyaabuhu sheega waxaa ka mid a aniga nin aanan garanaynin asugunan in garanaynin wuxuu sameeyey wuxuu isoo ribood isoo xusiisiya tiin barihi arrin la yaab la waayo arrinta noocaasa marka xogta noocaasa waxaan maxkamadda weydiisanaynaa inay qiimeyn ku samayso oo qofka noocaasa aanan maraggiisa aanan la qaadan guddoomiye arrinta iigu dambaysa garsoorayaal waxay tahay arrinta iigu dambaysa waxa ay tahay dooda xeer ilaalinta nuxurkeeda markaad fiiriso waxa waaye waxaa markhaati ii ah qof dhahaayo faldembiyeedkii 2018 ogay 2019 ogay waa arkayay qof aanan ogeyn yayna markhaati ku tahoo aan eedeeyo arrin qariiba waay waxaa markhaati ii ah buu leeyahay dacwad ooguhu qof dhahaayo lacagta waa la lunsanaya aniga waa joogay markii la iga xanaajiye uun kadib maxaa looga xanaajiye markii la iga xanaajiye kadib antiin barihi qaatay markaasan markhaatiyan qofkaas u isticmaalayaa qof beri ah oo leesku waafaqsanya inayna waxaas wax ka haynayna markhaati ku toon eedaynaya eedda xeer ilaalinta ma aqaano halbeega ay ku dhisan tahay ma aqaano eedda xeer ilaalinta hadda dadka dembiga galay aniga hadda dadka oo dembiga waa galna dhahayaan ha marag furaano ee dad beri ah ku marag furaano waa noocaas arrin sax ma ahan arrintaasi guddoomiye waxaan rabaa halkaasi inaan uga tilaabo arrinta ku saabsan maragga caliyow iyo wixii la xiriiray arrinta aan rabo inaan ka hadlo oo iigu dambaysa waxay tahay marka dhacdooyinka la yiraahdo mudane guddoomiyo dadaal badan kadib waxaa dhacay 9kii bishii labaad 2023 in wasiirka xilligaas jooga agaasimaha guud uu ku guuleystay inuu ku qanciyo sida loo sixi lahay shaqada woogbarmadka sidaas darteeday la soo saaray wareegto lagu maamulayo ruqsad bixinta shaqaalaha ajaanibta woogbarmadka dekreetadaasi waxaa la sameeyey wax badanaa iska bedelay woogbarmadka abruufalkii sucaad la heeday waa laga soo qaaday agaasimaha guudaa la siiyey kabacdi maxaa ka dhashay kabacdi waxaa ka dhashay arrin la isku waafaqsan yahay oo hanti dhowrihiina uu sheegay isla automatically waxaa kordhay dakhliga dawladda ogolaashada haddii agaasimaha guud wasiirku uu ku wareejiyey oo agaasima sucaad uu ka wareejiyey automatically waxaa kordhay dakhliga dawladda
وسؤالا ويدي بشي لبا دخل الدولة ما كرد واكردوري بشي الدحاد واكرد بشي أفراد واكرد أنت أصلا وأنت عبد الله وشقينا دخل مر والبوسي كرد هاي ماشي اسمح كدش وحي هذا ogolaashada maalintii lagu wareejiyay dakhliga uu kordhiyo dawladuna way ogtahay haddii wax la isu qabsaa ogolaashadiisa maalintuu lay dakhliga kordhisay cidii ogolaashada leh ku marxaati furta ka waran xilliyadii hore arin la yaab la waaya oo la rabay adiga maalinta ogolaashada leh dakhligu wuxuu u nusqaansanay cidii in la dhaha la rabay aaba ku marxaati furtaba wariyaha dakhligu kordhisay amal waaya arintaasi sax ma ahan in lagu eedeeyana ma ahayn asiga maxkamaddu wuxuu ka hor yiri in lay abaal mariya ayay aheeday oo maxkamadda ka hor yiri mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh waxaan rabaa inaan halkaasi uga gudbo maadaama waqtigu uu cariir yahay waxaan rabaa kaliya dhowr cadayn inaan soo gudbiyo oo booskoor inaan ku soo gudbiyo ay aheeday waxaan rabaa inaan soo gudbiyo warqadahaas maxkamadda aan u soo gudbiyo waxay isagu jiraan dhowr warqadood mid waa dekreetadii wasiirku uu soo saaray oo approvalka lagu siiyay kadibna ay ka dhalatay dakhliga dawladda inuu kordho marka horena approval ma haysan agaasimuhu midda labaadna waa midii shaqada looga joojiyay midda saddexaadna waa midii shaqada maxaan idhaahdaa dib loogu soo celiyey waayo midda saddexaadna mudane gudoomiye waxaa kalantoodan rabaa inaan soo gudbiyo warqado kalantood warqadahaasi waxay isaga jiraan sawiro iyo waxa waaye waxaan ka soo dejinay beedka wasaaradda hadda la joogo waa ku jiraan haddaan laga tirtiri doonin maxkamadduna waa geli kartaa 27 abriil 2022 waxaan u daliishanayaa agaasima Sucaad markay maxkamadda hor timida waxay sheegtay in afartii bilood Cabdullaahi ka maqnay iidna shaqada ay ka maqneed maxaa ka bedeshay intaan iri oo umul ay aheeday ayadiyaa ka dhex muuqato waa 27 abriil 2022 sawirkeeri haddana haddii la galo beejka wasaaradda waa laga helayaa waa la geli karaa way joogtay shaqada taas waxay beeninaysaa doodii ay ku doodo shaqadan ka maqnay aheed number 2 waxaan u daliishanayaa warbixintaasi waxay sii adkeynaysaa in Cabdullaahi xilka laga qaaday oo agaasimo kale lagu wareejiyay wasiirkina agaasimihii kale shaqaalaha uu ku wareejinayo oo la soo sheegay in shaqaalaha la baraayo agaasimihii ka dhex muuqdo wasiirkii ka dhex muuqdo hadda haddii la galo meeshaas wasaaradda beejkeeri hadda ku qorantaa annagu waa ka soo bixina screenshot aan ka qaadno waa waxaas maxkamadduna way geli kartaa laakiin haddii la waayo xataa screenshot ka yaal hadda waa ujeedaa screenshot aan ka qaadno waa dadaalayna waxa soo dhan dadaalan ka wadno ujeedku maaha in laga helaayay wajhul istidlaalka ama waxa u daliishanaysan warqadahan muhiima waa sheega wajhul istidlaalku laba arrimood u daliishanayna midda koowaad waxa waaye waxay support gareynaysaa warbixinta ku qoran meeshaasi oo ah in wasaaradda agaasimaha cusub loo magacaabay ilas baraya iyo shaqaalaha oo wasiirkii iyo agaasimihii cusbay oo afartii bilood shaqada haaya meesha inay fadhiyaan waxay adkeynaysaa xilka qaadista Cabdullaahi iyo in shaqadii lagala wareegay waa anigi doodaydii hadda ku xiraay aan ku xiree 4 bilood shaqadii sideeday u socotay waxna iskama bedelinayaa u eedaysan maxaa يعني هدي قف حل لقى قاضي عبد الرحمن مع حلك اللوجا قاضي وعبد الرحمن محسن محله سو بدل وهدي أقاسم بدلي كر وأنا كودو ده أرنت أساسي أتكيني سوان نمبر 1 قضبك أسيد دفاع قضبك يا قضبك أسيد دفاعي قضبك أسيد دفاعي ضد حرال أنت أسيد دفاعي أو قضب هنا ضد حرال أنت مسؤولية در وسميه عبد واحد محسن محني هذا حلك إنه إن ماشى أو كورجي هذا إيو عبد الرحمن إنه حلك قارئ حرال أنتو دلدلي مهين سؤال صحيح هذا إن لو يدي حرال أنتو قال لي راهدو قضبك الله بقول أفرت يكون مخصيصة قضبك الله بقول سديت لما ضاد اسم مخصيصة إن لي مخصيصة إن لي راهي هذا لكن ما دام حرال أنتو تضوى ما لارنتاس أو الدوان أنسجد دفاع نارنتاس
ما أبوكاتك ومويدين محكمة محي ودي وسي واحد ومويدين عدينا سوق قد بسي حق أولادنا سوق قد بسي هنا استفاد حق أولادها وحق شرعي لكن قضب بدأ أسكيد دفاعي سو سدا سوق اللي ويدين يسي قضب بدأ قصي ساعد ما هني هذه السنة اللي تكون محكمة دمر والبريسة تدوينون وافدين قضب بدأ أسكيد دفاعي عدين تان عدين تان وحن سجد دفاع يا ضد حير العالنت أو مسؤولية الرداء قضب مال مياه هذا حير العالنت ضد دار نصية هذا قضب كنصية وهاي حير العالنت ضد دار مسؤولية الدرية هذا قضب كان لو بقول فرت يكون لو بقول سديتي الله من قضب كيرا هاي أنا مركب موحن هذا قضب كنواينا إسكت دفاع ضد مسؤولية الدريدة يكون نقنقنا سنواينا إسكت دفاع أظن مضاد ضفادة إسكت دفاع مثلا إيد قرنا إسكت دفاع وتضبط يكون فصل إيد حتى مسؤولية الدريدة كقرن أنا أقول كم قضب كي إسكت دفاع هم كوري إيد وحاني سجد دفاع إيد فيرورت إيد وحاني سجد دفاع ضد حير إلى أنت تضوّل مالي أنت ولا تاجناي أو هذا مسؤولية دي سو كقول درستي هلا هو كات كات هلا هاي عدينا سوق بسي سفيحة عديت هذا القضب إسكت دفاعين وعشاني إيد قضب بدأ أدو سو حق بقول لحنا تبى سو إسكت دفاعي ميس بقول أفرت بروح اللي سوق بي إيه إيد كوقرة تدباتي كو قضب بدأ عديمها إسكت دفاعي سو يشاك محكمة سوق ميس waxaan isaga difaaca bas waxa la wixii la yiraahdo gudoomiye waxaan rabaa eedan waxaan ku diraa marag waa ku diraa koow horta maragan ku diraa koow horta okay maragan ku diraa waxa waaye maraga maxkamadda wuxuu ku hor yiri oo warkiisa la qaato waayo in la qaado ma huba wuxuu maxkamadda ku hor yimid waa maqnaay maxkamadda ku hor yiri inuu joogan cadayn ma ahan miya كجودب تاس أوكي وافهم محكمة سيف عنه فهمته ما فهمته أي محكمة نقص شواك بدبال ما ها أبوكاتي كجودب ماشي أبوكات هلا نقول أبوكاتي ماشي جو مال لو عيار ما هن تذكر إلا ما قصنا مجاجلين لو بيجوا واحد دفاعي سد دفاع عاجة سيدا أي تهاوجل محكمة سؤال شيء كوي دي سنة سيدا يتهاوج جواب تذكر إنك قص لي ساق شغلني واحد سكيد دفاعي سوى واحد شك أديك لك كجودب فروسع maxkamaddu ma hasantahay waxa isaga difaacay waa number 1 sheeg gabadhaas inuu joogteen oo ku cadeeyo number 2 inayna mas'uuliyad darra dhicin haddii mas'uuliyad darra ay dhacdana cid naga dambaysa shaqadu sideen u socotay intaas la waa doodaydu eeda waxa ku jirto waxa lunsatay lacag dawladeed oo aad mas'uul uga ahaaday qaranka aruurinteeda aad mas'uul uga ahaaday gudoomiye qof kasto garsoorayaal qof kasta oo la eedeeyay waxaa lagu eedeeyay agaasimaha guudna waxaa la dhahay lacagta aruurinteeda qaranka mas'uul uga ahayd agaasimo waaxeed haddii la eedeeyo waxaa la dhahaa lacagta aruurinteeda qaranka mas'uul uga ahayd sargaal wasaarad maaliyadeed haddii la eedeeyo waxaa la dhahaa lacagta aruurinteeda qaranka mas'uul uga ahayd bangiga dhexe markii la eedeeyay lacagta xereynteeda iyo aruurinteeda qaranka mas'uul uga ahaaday war hortu lacagtan xereynteeda yaa mas'uulka ah qof kasta ma mas'uulka ah iida waa waxa eeda lagu la yaabay kamid tahay lacagta xereynteeda cida mas'uulka ah wasaaradaha adeega bixiyana bixinta adeegay mas'uulka yihiin laakiin qof kasta la eedeynayaba in saas loo qoro la yiraahdo mas'uulad ka tahay waa arin la yaab leh labo waxaan rabaa sida abukaata jeella uu sharxay cabdullaahi wuxuu handal gareeyay oo uu ku guuleystay oo gaal iyo muslimba ay ka marag fureen mashaariic half billion gaarayso oo gaal iyo muslimba ay ka marag fureen in si fiican loo handal gareeyo maxaa khasbayo waa barmad oo $100 iyo $300 iyo $500 lagu ururinaayo in musuq oo sabab ugu noqdo wax khasbaaya ma laha ninka taas ku guuleysatana waa ku shalab waana ku guuleystay maxkamaddu aaday u mahadsan tahay warkayga halkaasan ku soo koobay